ku soo dhawaada barnaamijkeeni maanta. intaan u guda gelin barnaamijyada xiisaha badan waxaan soo gelin doonaa insha Allah maalmaha Khamiista. Si aad u heshid barnaamijyadaasi, fadlan subscribe saar channelka, gambaleelkana furo si kugu soo dhaco barnaamijyada cusub. aan hore u guda galo barnaamijka. magaalooyinka ugu qadiimisan caalamka way tiro badan yihiin, balse maanta waxaan ku gaabsanaynaa insha Allah 10 magaalo. magaalada Tiiba waa Masartii hore, waxayna ku taalaa Masar, waxaana la aasaasay 3200 sano ka hor miilaadiyada, waxayna ahayd caasimad ilaa waqtigii Roomaanka oo markaas la bedelay. Zaylac waa magaalo dhacda waqooyiga dalka Soomaaliya, waxaana la aasaasay qarnigii 19aad ka hor miilaadiyada. magaaladan waxay caan ku ahayd ganacsiga iyo cilmiga. haddaynu in yar taariikhdeeda milicsano, Zaylac waxay dhacdaa mandiqada Awdal ee Soomaaliya, waxaana daris la tahay gacanka Cadal, waxayna u dhowdahay xuduudda Jabuuti, waana magaalo ay ku wareegsan tahay bad marka laga reebo hal dhinac. dadka ku nool magaaladan waxaa lagu qiyaasaa 18,600 oo dad ah. yuusan warka igu dheeraanine aan u jileeco magaalooyinka kale. Ariixa waa magaalo dhacda Filistiin, waxaana la aasaasay 9,000 sano ka hor miilaadiyada. magaaladan waa magaalo ahmiyad gaar leh, waxayna caan ku tahay wax soo saarka iyo beeraha. Jabiil waxay dhacdaa Lubnaan, waxaana la aasaasay 5,000 sano ka hor miilaadiyada. magaaladan waxay ahayd markii hore goob laga soo ugaarsado kalluunka, kadib waxay ku caan baxday dhaqdhaqaaq ganacsi, taasoo sababtay inay dhacdo mandiqad istiraatiiji ah lehna dekad weyn, waxayna ahayd mid laga dhoofiyo badeecooyin fara badan, dadkeedana ku caan baxay samaynta doonida. Xalab waa magaalo dhacda Suuriya, waxaana lagu tiriyaa magaalooyinka ugu qadiimisan caalamka, waxaana la aasaasay 4,300 sano ka hor miilaadiyada. waxayna leedahay ahmiyad gaar ah oo waxay dhacdaa marin muhiim ah, waxayna sidaa ku noqotay badda lagu magacaabo Baxrul Abyad. waxay dhacdaa galbeedkeeda, webiga Furaadna wuxuu dhacaa barigeeda, waxayna ku caan baxday magaaladan Xalab ah dhaqaalaha. Saydaa waxay dhacdaa dhulka Fiiniqiyiinta, waxaana la aasaasay 4,000 sano ka hor miilaadiyada. magaaladan waxaa la burburiyey xilligii Saliibiyiinta, kadib waxaa dib u dhisay dowladdii Cusmaaniyiinta, inkastoo markii dambe ay qabsadeen Faransiiska. Athena waa magaalo dhacda Yunaanka, waxaana la aasaasay 4,000 sano ka hor miilaadiyada. magaaladan dadkeeda waxay ku caan baxeen beeraha iyo dhismaha, waxaana markii hore burburisay dowladdii Furus, waxaana magaaladan hore caasimad ugu ahayd reer Yurub. Makka waxay dhacdaa Xijaaz ama dhulka hadda loo yaqaano Sacuudiga, waxayna taariikhaha qaar qorayaan in la aasaasay 2,000 sano ka hor miilaadiyada. magaaladan waa magaalo qaali noogu ah, waana meesha ugu fadli badan dhulka, waxaana ku yaala Kacbada, waana xaram. dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 1,700,000 oo dad ah, waana sida tirkoobkii la sameeyey 2007. Qardaaj waa magaalo dhacda Tunis, waxaana la aasaasay 814 sano ka hor miilaadiyada, waxaana aasaasay Fiiniqiyiinta, waxayna hadda dhacdaa isla dalka Tunis, waxayna 15 kiiloomitir u jirtaa magaalada caasimadda ah. markuu bilowday furashooyinkii Islaamka ee dowladdii Amawiyiinta, Qardaaj waxay ku soo dhacday gacanta muslimiinta. Berbera waa magaalo dhacda waqooyiga Soomaaliya, waxaana la aasaasay 400 sano ka hor miilaadiyada sida ay sheegayaan taariikhaha qaar,
waana magaalo ay ku taalo dekad weyn waxaana mara gacanka Cadan waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool magaaladan 200,000 oo dad ah waa sida tirkoobkii la sameeyay sanadii 2000